Ciidamo ka goostay maamulka Jubbaland oo ku biiray ciidanka dowladda ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado iyo saraakiisha dowladda oo soo dhaweysay ciidanka. Madaxda Jamhuuriyadda Federaalk oo wada kala furfurka maamulka Jubbaland iyo sidoo kale Jubbaland oo ku eedeysay dowladda dhexe in ay wado dagaal siyaasadeed oo lagu burburinayo maamulka Jubbaland ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa wadayaal daqiiqadaha soo aadan. Laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara, sii share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin, bogana follow soo dhaha si aad kaga mid noqotaan saaxiibada ku xiran. Mahadsanidina. Aynu ku bilownee ciidamo ka soo goostay maamulka Jubbaland isla markaana horay uga tirsanaa maamulkaasi ayaa maanta lagu soo dhaweeyay gudaha degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado. Ciidamadani oo wata gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay sheegayaan in ay ka kala yimaadeen duleedka magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado iyo sidoo kale degmada Mandera ee waqooyi bari Soomaaliya. Waxa ayna ciidamadani qayb ka ahaayeen ciidamo muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka Jubbaland uu ku diyaarinayay halkaasi si ay dagaal ula galaan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado, iyadoo dowladda dhexe ee Soomaaliya halkaasi ay ka waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah maamulka Jubbaland. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada isi soo dhiibay ayaana sheegay in ay ku qanci waayeen hanaanka uu u shaqeynayo maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Isla markaana saraakiisha qaarkood ayaa tilmaamay kadib warqadii ka soo baxday Axmed Madoobe ee maqaamka madaxweynaha jamhuuriyadda hoos loogu dhigay in ay ku qanci waayeen la sii shaqeynta maamulka Jubbaland. Waxa ayna taasi dhabaha u xaartay in ciidamadani oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay isaga soo baxaan ciidankii ay ka tirsanaayeen ee Jubbaland, isla markaana ay ku biiraan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado. Saraakiisha ciidanka dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ku sugan degmadaasi ayaa soo dhaweeyay ciidamada ka soo goostay Jubbaland, iyadoo saraakiisha soo dhaweysay ay qayb ka ahaayeen taliyaha ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Genaraal Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska dowladda dhexe ee Soomaaliya ee degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado iyo saraakiil kale iyo ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan. Saraakiishani ayaana la hadlay qaar ka mid ah ciidamadii isi soo dhiibay, iyadoona Genaraal Cabdirashiid Janan uu sheegay in dowladda federaalk Soomaaliya ay diyaar u tahay inay soo dhaweyso ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kaleetaba ciidan walba oo doonaya inuu ka hoos baxo nidaamka keligii talisnimo ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. taasina ay dhabaha u xaareyso in shacabka maamulka Jubbaland ay dhistaan dowlad ay iyagu leeyihiin, sida uu tilmaamay Genaraal Cabdirashiid Janan oo sheegay in Axmed Madoobe uu noqday dowlad diid iyo sidoo kale jihadiid sida uu hadalka u dhigay. Genaraal Cabdirashiid Janan oo horeyna u ahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland, waxaana dowladda dhexe ee Soomaaliya markani ay u xuubsiibatay in ay kala geyso maamulka Jubbaland, isla markaana hab walba oo lagu kala burburin kara maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu isugu caanaha shubay ay dowladda dhexe dadaal ku bixinayso. Dhowaan uun ayay ahayd markii bayaan ka soo baxay filla Soomaaliya lagu sheegay in ay ka go'an tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya in maamul cusub ay ka dhisto gudaha degmada Garbaharey ee gobolka Gado
kadib wadahadaladii dhexmaray dowladda dhexe khaasatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha maamulka Jubbaland kuwaasi oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan isla markaana lagu soo kala tagay iyadoo lagu madlanaa kulamo kaleeto laakiin dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa kulamo saacado badan qaatay ilaa iyo in ka badan 24 saac ka socday filla Soomaaliya waxa ay ku go'aamiyeen in magaalada Garbaharey ee gobolka Gado maalmaha soo socda laga dhiso xukuumad ka dhan ah maamulka Jubbaland isla markaana la magac baxday Jubbaland cusub iyadoo la sii og yahay sida xogaha qaar ay tilmaamayaan mas'uulka noqonaya madaxweynaha maamulka Jubbaland cusub ee dowladda ee ka dhisaysa degmada Garbaharey ee gobolka Gado iyadoo dowladdu ay wadato ilaa iyo 3 musharax sida xogaha ay tilmaamayaan saddexdaasi musharax oo kala ah Balaan A Balaan B iyo sidoo kale Balaan C si loogu maquuniyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in gabi ahaanba meesha laga saaro waxaana Axmed Madoobe ay u muuqataa dagaalka uu dowladda la galay in uusan wax faa'iido ah ka helin waxaana wararku ay sheegayaan in dowladda istiraatiijiyadii dagaalkii Ras Kamboni ay bedeshay kadib markii dagaalkaasi lagu gaarsiiyay khasaare aad u xoogan waxaana hadda degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado dowladda ay ka gaartay guulo fara badan maadaama ciidamada halkaasi ka dagaalamayo iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaysaba ay yihiin kuwa ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana horay uga tirsanaa heekalka maamulka Jubbaland waxa ayna taasi dowladda u sahashay in ay kala adkaan waayaan labada dhinac isla markaana Axmed Madoobe loogu adkaaday gudaha magaalada Garbaharey ee gobolka Gado iyo sidoo kale guud ahaanba gobolkaasi oo qaybo ka mid ah oo Beled Xaawo ay ka mid tahay dagaalo uu kula galay ciidamo horay uga tirsanaa maamulkaasi laakiin dowladda federaalka Soomaaliya la shaqeynaya xilligani ciidamadaasi oo hogaaminayo wasiirkii hore ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Jarana waxa ayna hadda wararku ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay ka soconayaan gudaha gobolka Gado isla markaana dowladda ay wado gulufkii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah maamulka Axmed Madoobe dhanka kaleetana ugu dambeyntii haddii aynu eegno Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xukuumaddiisa qaasatan wasiirka warfaafinta maamulkaasi ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshe siyaasadeed kaasi oo ah dagaal lagu duminayo maamulka Jubbaland isagoo ku eedeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in uu yahay jihadiid sidoo kale tana carqalad ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska maamulka Jubbaland sida uu hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta maamulkaasi waxa uu sidoo kale wasiirka sheegay in maamulka Jubbaland uu garadsan yahay waxa uu qabanayo iyo sidoo kale heekalkiisa siyaasadeed isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay in ay faraha kala baxdo faragelinta ay ku hayso maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Sayid Axmed Maxamed Islaam Madoobe daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara sii sheer garay oo la wadaag saaxiibada sidoo kale qaybta hoose ee faallada inagula wadaag aragtidaada mahadsanida